صاحب هذا البيج كعصب تحي ندي رجع وده سبسكرايب لايك يا شير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عشر كان ما أنت وكسب سين فقد درت أباهن تهي وأنا عشر كي صدحات وحنسي خاص وقهل دونا وريها اللو يغان فوسفور وهي هي فوسفور نانيس عريها فوسفور كوا بي فوربين وعريها شن تمنات كالجلك عرياشة فوسفور كوا برمائه أتكأه وحا لجهلا معدن تدلك وكجرته ترى أتم كيس واشان يطبان وليس أتم كيسنا وصدن يكو كافتون كيس وعن صنة ومينستري فوسفور كوا كمدي هي عرياشة دح صعدا درته waxaanu la jeednaa qaybaha kala duwan ee dhirta si sahlan ayuu isaga gudbaa dhirtu waxay nuugtaa isaga oo ah dihydrogen phosphate ama phosphorus acid dhaqsihiisa carrada dhexdeeda waa yaryahay macnaha dhaqsaha oo carrada dhexdeeda ku maraya ma badna waa gaabis marka waxaan ka hadlaynaa ahmiyadda fosfoorka uu leeyahay iyo waxtarkiisa ayaan ka hadlaynaa waa maxay ahmiyadda fosfoorku leeyahay waa maxay waxtarka uu leeyahay noolaha kow fosfoorka dhirtu waxay nuugtaa isaga oo qaabka dihydrogen phosphate ama hydrogen phosphate ay dhirtu nuugtaa qodobka xiga wuxuu ka qayb galaa sameynta enzyme-yada بروتينada asiidka bu'da unuga ama nucleic acid sida DNA RNA ATP ADP NAD iyo NADP iyo qaybo kamida duxda sida phospholipids saddex wuxuu kaalin muhiim ka qaataa qaybsamida unuga cell division wuxuu dhiirigeliyaa koriimada xididada dhirta wuxuu kor u qaadaa ubax dhalidda dhirta iyo samaysanka miraha wuxuu yareeyaa dhibaatada ka dhalan karta haddii nitrogentu carrada ku badato wuxuu muhiim u yahay neefsashada dhirta haddana waxaan u gudbaynaa astaamaha muujinaya fosfoor yaraanta ama in dhirta ama geedka uu ku yaryahay fosfoorka kow caleemaha waxay noqdaan kuwo aad u cagaaran si aan caadi ahayn macnaha caleenta geedka fosfoorka ku yahay midabkeedu waxay noqotaa cagaar tikh ah qodobka labaad calaamadaha fosfoor yaraantu waxay marka hore ka muuqdaan caleemaha hoose ama caleemaha duqoobay macnaha geedka caleenta ay ka korayso way ka cusubtahay marka caleemaha hoose oo mar hore soo baxay caleemahaas ay ugu horeyn ka muuqanaysaa calaamadaha in fosfoorku ku yahay geedkaas saddex koriimadu waxay noqotaa gaabis yani geedka fosfoor ku yahay koriimadiisu waxay noqotaa gaabis laamuhuna waxay noqdaan daciif ayay noqdaan waxaa dhici karta in ubaxyadu daataan geedku hadduu ubax lahaa ama dalagu ubax lahaa ubaxii way daadan karaan haddii fosfoorku ku yaryahay miraha xajmigooduna waxay noqonayaan kuwo yaryar oon aad u waaweynayn dhirta iniyahoodu halqalbacleyda yihiin halqalbacley waxaa loola jeedaa monocot sida qamadiga iyo galleyda marka fosfoorku ku yaraado meelo kala duwan oo caleemaha ka mid ah waxay yeeshaan midab guduud ah ama casaan khafiif ah markay ku jiraan marxaladda koriimada yacni midabka guduudka ama casaanka khafiifka waxay yeeshaan marka ay ku jiraan marxaladda koriimada hore lix iniyaha laba qalbacleyda ah dicot sida yaanyada qajaarka basasha xididada waaweyn ee caleenta duqowday waxay yeeshaan midab guduudan ama casaan khafiif ah caleemaha cusubna waxay noqdaan guduud tikh ah caleemaha cusub waxay noqdaan guduud tikh ah toddobo caleemuhu waxay isu bedelaan buluug ama bunfuski ereygu waa carabi ingiriiskana waxay u dhigantaa violet xaaladaha fosfoorku aad u yaraado geedka caleentu waxay yeelataa dhibco jaallo ah iyo kuwa aad u cagaaran caleemahan kala duwan oo ku muuqda dhammaan calaamadaha ka muuqda waxay ku tusinayaan in fosfoorku ku yaryahay hadday noqon lahayd calaamaha guduudan hadday noqon lahayd calaamadaha buluugga xiga
hadday noqon lahayd kuwa jaalaha oo ka muuqdo dhammaantood waa astaamo muujinaya in geedkan uu ku yar yahay fosfoorku sidoo kale geedahan kale ee ku muuqda noocyada kala duwan sida galeyda yaanyada iyo kuwa la midka ah calaamadaha sawirkan kaaga muuqda ayaguna waxay tusinayaan fosfoor yaraan ayay tusinayaan casharkeena maanta intaas ayuu ku ogyahay